garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta shir jiraayid ku qabtay xarunta xisbigaasi ayaa kalsoonidii kala noqday ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo. Gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sadiq Dhame ayaa faahfaahiyay sababta ay kalsoonida uga noqdeen ururkaasi. Dalada dhalinyarada Soonyo oo runtii ku ah dhalinyarada Soomaaliland waxaan qabanin qaranka Soomaaliland foolxumeey ceeb ku ah shirkaas oo laga wada hadlayay mashruuc socday bariyahanba oo xisbiga kulmiya oo qayb ka ahaa xukuumaddiisu oo ahaa sidii integration dhalinyaradu ay isu dhexgali lahaayeen dhalinyarada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay mas'uul ka ahaayeen inta badan xukuumadihii kala dambeeyay ee kulmiye hoggaanka dalada Soonyo runtii arrinkaasi wuxuu ahaa arrin aad foolxumadiisa iyo fadaaxadiisa u leh shirkaasi oo lagu mijaxaabinayo qarannimada Soomaaliland. Soonyo waxay ahayd dalad u taagan horumarinta qarannimada Soomaaliland iyo dhalinyarada waxaana ahayd urur bulsho oo aan ahayn urur siyaasadeed horena ugu maanaan ogeyn iyadoo inta badan ay soo tarayeen cabashada dhalinyarada ay ka qabaan maadaama aan loo sinayn saamigeeda iyo sida ay u dhisan tahay oo ay ahayd arrinkaas arrin gudaha ah xisbi ahaana waxaan u aragnaa dalada Soonyo maadaama ay ka qayb gashay shirka 4 bisha ka bilaabmay Nairobi ee dhamaaday 6 bisha Soomaaliland iyo Soomaaliya la isugu keenay ururadooda bulshada lagu weeqaayo go'aansitaanka iyo qarannimada Soomaaliland inaanu hayn wax aan qabanin dhalinyarada Soomaaliland ceebna ku ah shirkaas oo ay ka soo baxeen ay kamid ahaayeen qodobadii ka soo baxay sidii civil society iyo arrimaha bulshada ururada ka shaqeeya ay uga qayb qaadan lahaayeen midowga mar labaad dhaca kaasoo aan qabanin Soomaaliland maadaama aanu nahay dhalinyaradii xisbiga wadani oo aanu qaybna ka nahay nimatisho dalada dhalinyarada Soonyo uma aqbalayno mana qaadan karno foolxumada ay samaysay daladu iyo qaran dumisnimada mana ahayn daladu inay noqoto dalad ay ku adeegtaan cid gaari oo lagu mashaariic doonto oo ilaa iyo la gaadho xamar inay gaadhaan ma ahayn annaguna aanu si buuxda uga tashanayno oo kala noqonayno kalsoonidii hore aan ugu qabnay ahayd inay tahay dalad qaran. Gulad Maxamed Aadan, Gulad Cunaabi, Telefishinka Saab, Hargeysa.